السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada casharkeennii 11aad oo aynu ku soo qaadan doono sida loo sameeyo table leh column identity. Identity macnaheedu waxa weeyaan waa column marka lagu apply gareeyo identity-ga isagoo auto increment sameynaya isla marhaantaana halka ka bilaabmayo iyo inta increment-ga aad adigu u cayimayso oranayso number 1 2 3 sawad macnaheedu halkii aad adigu kolba ID ka gelin lahayd ayuu isagoo auto increment u sameynaya oo isaga ayaa gelinaya kolba la barnaamijka ku sii xiga walaynu isla eegno isagana tusaalayaal ku soo qaadano inaga oo query iyo man walba table-kaas ku sameyn doona aynu tagno Microsoft SQL Server aynu soo furno databases kadibna aynu kasii doorano pro database aan create gareyno markaa maga table cusub oo leh identity inagoo marka hore ku sameynay manual saad arkaysaa لأرجو به يا إلهي القبولا دعونا نناجي مولا جليلا haddaba saynu sameyno column-ka auto increment-ka sameynaya halkan aynu tagayna kadibna serial number aynu primary key ka dhigana markaanu primary key ka dhigno halkan hoose aynu tagayna waxaanu dooranayna identity specification halkan ay ku qorantay identity specification waxaad aragtaa inuu noo yahay halkan aynu soo furana kadibna yes baan ka dhigana halkan waxaad ku aragtaa identity increment-ga inuu wan yahay oo midmid buu kordhinaya identity sheet-kuna waa halka uu ka bilaabmayo oo ah number 1 sidaas oo marka manual lagu sameynayo table-kii auto increment-ga haddaba marka lagu sameynayo kooriyahan sidan ay la qoraya oo markaad qorto roll number kadibna tiraahdo waa integer kadibna aad ku xigiso primary key oo ah constraint kadib halkan aad ku xiigsinaysaa identity-ga kaad u tagashay macnaheedu column-kani roll number ah waa identity isla marhaantaana increment-kiisu 1 ha noqdo seed identity-guna 1 ha noqdo sidaas ayaynu ku execute gareynaa kooriyan oo noo sameeyay table-kan kalena aynu save gareyno isla marhaantaana magac u bixino kadibna okay welan imika labadeena table bas sidaas ay inoogu sameeysan haddaba aynu bal eegno habka ay labadooduba auto increment-ga u sameynayaan oo aynu soo furno labadeena table-keeni ahaa mml iyo table-keeni ahaa toga heerar labadan table waxaanu ka dhignay in iyagu serial-ku auto increment sameeyo inta kalena aynu galgalino naamkaan ku qoro xamse telefonkiisana aan ku qoro kadibna aan taabto aan soo geliyo magac labaad oo aan leeyahay shaadiya kadibna markaysa markaan taabno isaga ayaa automatic serial-ka u sameynaya bal magac saddexaad oo kale aan soo geliyo waan leeyahay hamda kadibna markaan science ka qoro markastoo aan taabano isaga ayaa auto increment-ga sameynaya aan idhaahdo selma kadibna markaysa yahay isaga ayaa auto increment-ga soo sameynaya table-keeni kale ee ma laha isagana balayno eegno waxaad aragtaa inuu ka boodnay roll number-kii kadibna first name-kii aynu isagana gelin oo aynu leenahay Samira ana female mobile-keedu waa sidan kadib taa markana isaga ayaa automatic wanka u soo qaadanaya bal magac labaadaan geliyo oo ah cibaado kadibna female kadibna numberkiisu yahay isaguna sida aad wada aragtaan isaga ayaa auto increment-ga sameynaya inagu ma gelinayno ID ama se aan idhaahdo roll number-kan inagu ma gelinayno sidaas ayaana loo sameeyaa marka aad doonayso inaad sameyso table auto increment-ga uu sameynayo column-kiisa ID-ga roll number-kiisa ama serial-ka hadba column-kaad ugu tala gashay auto increment-ga sameeyo sidaas ayaa loo sameeyaa halkaas aynu ku joogay casharkeena ku saabsanaa sida loo sameeyo identity. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi